kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ahaantiba ku soo dhawaada mar kale iyo warbixin kale oo ku saabsan tobanka wadan adduunka ugu halista badan ama ugu nabadda xun ayaan warbixinta ku eegaynaa. fadlan haddaad nagu cusub tahay ama aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar isla markaana gambalelka furo si aad ula socoto wax kasta iyo warbixin kasta oo soo gelino noqona qofka ugu horeeya. mahadsanid. kaalinta tobnaad waxaa ku jira wadanka Burundi la yiraahdo Burundi ilaa 2015 markaas oo doorasho lagu murmay madaxweynaha wadankaas Pierre Nkurunziza oo ku soo laabtay xaaladda ammaan aad bay u xumaatay meelo badan oo wadankaas ka midna waxa la soo sheegaya in dad kala laayo oo la iska dilo afgambi fashilmay ayaa arrintan keentay madaxweynuhu tilaabo qaado riski ama waa halis baa leeyahay wadankaas meelo ka mid ah laga shaqeeyo iyadoo waliba wadankaasi ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka oo ka mid yihiin xanuunka daacuunka iyo malaariyada ay ka jiraan ayaa haddana hay'adaha caafimaadka shaqaalahoodu ay ku adag tahay inay ka shaqeeyaan wadankaasi Burundi. kaalinta sagaalaad waxaa ku jira wadanka Koongada Dimuqraadiga wadankan waliba waa la joojiyay in shaqaalaha caafimaadka caalamiga ay ka shaqeeyaan iyadoo waliba wadankaasi uu ka jiro xanuunka sida daran ee Ebola la yiraahdo oo qaramada midoobana ay u aragto halis badan in adduunka uu ku hayo gaar ahaan wadamada Afrika la yiraahdo sababta ay joojiyeen shaqaalaheena waxa weeyaan halis badan oo ay la kulmi karaan. waxaa sidoo kale kaalinta sideedaad ku jira wadanka Ciraaq oo warbixintan leedahay ISIS ayaa oo lagu bixiyay burburinteeda iyo dagaalkeeda qaramada midoobay lacag ka badan $1 bilyan ayaa wali halis badan ay ku jirtaa. waxda arrimaha dibadda Mareykankuna wali waxay u saaran tahay Ciraaq ama ugu jira kaalinta sideedaad wadamada adduunka ugu halista badan. toddobaad waxaa ku jirta dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe la yiraahdo. lixaad waxaa ku jira warbixintan leedahay waxaa ku jira Soomaaliya oo wadankan warbixintan waxay leedahay Mareykanku markuu sheegay wuxuu soo saaray liiska inaan Soomaaliya la booqan karin ilaa 2018 July ilaa haddana ay saaran tahay argagixisada dambiyada dadka la dilo iyo burcadbadeeda ayaa ku badan Soomaaliya marka dhinaca kale laga fiirsho. al-shabaab ayaa qaada ayaa lagu yiri qoraalkan weeraro dad badan dhiigooda ku daato iyagoo bartilmaameesta meelo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya dad ay meel ay degan yihiin ama ciidamo ay degan yihiin. Mareykankuna diyaaradihiisa dagaalka ayuu adeegsadaa oo ku bartilmaameesta meelo ka mid ah dhulka shabaab ee ka gudaha dalka Soomaaliya dad ay meel ay degan yihiin ama ciidamo ay degan yihiin. Mareykankuna diyaaradihiisa dagaalka ayuu adeegsadaa oo ku bartilmaameesta. kaalinta shanaad waxaa ku jira wadanka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan ama Suudaanta Koonfureed. warbixintan waxay leedahay wadankan tan markii uu madaxweynadiisa ka qaatay wadanka Suudaan iyo ku-xigeenkiisa oo isku qabteen dhinaca siyaasadda taas oo keentay in dad badan ay ka cararaan guryahooda. qiyaastii malaayiin qof oo reer Koonfurta Suudaan ayaa hadda noloshooda adag tahay wadankaas in dadka samafalka iyo hay'adaha kale ay ka shaqeeyaan ayaa halis u ah oo aysan ka jirin karin hadda. kaalinta afraad waxaa ku jira wadanka Liibiya warbixintu waxay leedahay waayahan dambe halistiisu aad u badneed. tusaale ahaan oo kale tan markii la xiray safaaradda Mareykanka ku leeyahay Tripoli 2014 suurtagal ma ahayn dadka Mareykanka inay tagaan. sidoo kale dadka kale ee wadamada reer galbeedka iyo adduunyada kale ka soo jeeda ayay suurtagal u galayeen. wadankan waxaa lagu xasuustaa 2012 markii la dilay nin ka tirsanaa qonsuliyadda Mareykanka oo danjira Mareykanka ama wakiil u ahaa oo lagu dilay wadankaas afduubka madax furashada dadka laga qaato kufsiga dilka qaraxyada iyo intaas oo dhan wadankan ayaa ka jirta. kaalinta saddexaad waxaa ka jira ama ku jira wadanka Afghanistan waxaa leeyahay meel kasta halis weeyaan. bishan July ilaa July la soo dhaafana weerarada ismiidaaminta ay ka dhaca aad bay u bateen sida warbixintu sheegayso. meesha ugu halista badan Afghanistanna waxaa loo aqoonsaday magaalada Jalalabad la yiraahdo. Taliban ayaana ka talisa wadankaas meelo badan oo kamid ah hay'adda siyaasadda Mareykanku waxa ay sheegtay in ilaa 18 sano la soo dhaafay wadankaasi intiisa badan ay ahayd meel halisa oo aan isku haleyn karin. kaalinta labaad waxaa ku jira wadanka Yemen waxay leedahay ma jirto meel ka madax bannaan wadanka Yemen oo miina aysan ku jirin. halis badan ayaana ka jirta wadankaas. waxa weeyaan wadankan waliba dhibaatada kale uu ku darsada waxa weeyaan in Mareykankuna waxa uu ugu jira liiska adduunyada wadamada ugu halista badan kaalinta labaad ayuu kaga jira. wadankan waxaa la warbixintu sheegaysaa in ay saameysay qalalaasa dhinaca siyaasadda ah ammaanka oo aan sugnayn argagixisada oo ku badan kooxaha hubka haysta oo aad ugu badan mararka qaarna waxa weeyaan halistiisu way badan tahay. meel walba wadankaas ka midana dhibaato weyn ayaa ka taagan. warbixintan waxa ay gelinaysaa kaalinta koobaad wadanka Syria inuu yahay halka adduunka ugu amniga xun. waxayna warbixintan leedahay wadanka Syria oo dhan meel kasta oo kamid ah waa halis in qofku uu booqdo.
xaaladda khatartuna meel walba ayay gaartay waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka dhowr jeer ayay soo saartay digniino ay u dirayso dadkeeda ay ku sheegayaan ama ugu sheegayso inay ka fogaadaan waddanka Syria inay tagaan sababtuna waxa weeye colaad ay Syria ka taagan ilaa 2011 ayaa saameyn ku yeelatay dadka caadiga ah ama ajnabiga marka ay tagaan waddankaas u dhalana halis badan ay kala kulmin karaan bal leeyahay weerar kale iyo inay kala kulmaan dhinacyada hubeysan ee dawladda Syria ka soo horjeeda akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudanay intaas ayaan ku soo koobaynaa 10 wadan ee adduunka laga calaamadeeyay in ay yihiin 10 wadan ee ugu halista badan ama ugu nabadgelyada xun halkaan sida tooska uga daawanayseena waa SRS TV fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe sar gambalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee warbixinta iyo wax kasta oo soo gelin la socda mahadsanid